maxaa ka soo baxay ama waa maxay xaaladii ugu dambeysay ee baaritaankii meydka Allah u naxariistay ee Colonel Ahmed Hussein Adib oo la leeyahay waxa lagu dilay hotelkii shalay toole uu ka deganaa arrintii baan doonayay bal waxa ka soo baxay xog ilaa iminka xogaha la hayo dadka loo hayo baaritaanku halkuu marayo inkastoo aan weli booliisku inala wadaagin xog dhammaystiran marka barnaamijkaas aynu ku yara falanqayn doonaa iyo guud ahaan xaaladaha iyo khatarta si guud ugu xeeran Somaliland khatar intan ka weyn ay ku dhici karto haddii ay xaaladahan aan wax laga qaban barnaamijka share gare la wadaaga asxaabtaada kuna soo biir baraheena bulshada sida YouTube iyo TikTok iyo Facebook ee Digal TV okay aan ku bilaabay waxaad ogeedeen Ilaahay u naxariistay in ninka booliiska lagu dilay ama ay xabadi ku dhacday hotelkiisa isagoo jira hadda miyaa la dilay mise isaga istilay su'aasha imka taala ayaa ah ma la dilay ma isaga istilay waa maxay nimankan Puntland sababta ay ugu sheegayaan ninkan inuu yahay kaasi nin ama daacisha ama la shaqeeya xarakoodas okay iyo sida ay warbaahinta reer koonfurka Soomaaliya iyo waxan iyo qaabka ay qoriyaan haddaba waxa soo baxaya war booliisku laga yaabay laftiisu inuu yiraahdo uu istilay iyo waxyaabaha loo qabtay ilaa imika inta la eego aynu eegi doonaa taa haddaba intaanan gelin dadkii la qabtay waxyaabaha u eeg inuu istili karo iyo waxyaabaha u eeg in la dili karo ayaan horta waxaan rabaa inaan ka horreysiiyo sida ay ku sheegeen Puntland iyo nimankii khaasatan beelaha daaroodkii hawiyaha iyo reer xamarka u badan horta sababtay u qoriyaan ku sheego dagaaladii ceerigaabo ninka wuxuu ka galay dagaal aad u adag ilaa markii wadanka lagu soo noqday horta wuxuu ahaa raggii SNMta deegaanka loo mari waayay waxa weyn in aad u yaqaanay nimanka harti iyo daarood buu ahaa oo hilfaha u qaaday oo digada iyo dambaska intuu ka dhigay waxay la qotay waa raggii dhowr iyo sagaashamaadkii loo bariyay war nimanka walaalaha daarood waxa ku soo noqdaan magaalada ee yiri iyagoo Somaliland oo nabada sanka kaga talantaa ku soo noqdaan shuruudihii afarta beelood iyo ay ku wada deganayeen degmada saxeexay waa ninkii booliiska adag ka sameeyay ceerigaabo ilaa iyo xeebna horta isku dubaritay military la dhisay nimankaasi horta nin meel saaray way dagaaladii inta badan Puntland iyo Somaliland dhexmari jiray raggii xoogga ku lahaa way waa nin lagu seexin jiray min Puntland laascaanood ilaa iyo halkaasi cadba soo socda horta nimankani taasa u geysay iyo naf iyo meydkiisa kula ciilbax ninkan meel uu xiriir kala leeyahay nimanka khawaarij meynaan maqal hadduu xiriir la leeyahay inuu inta leeg yahay weeye buurahaasi inta leeg ee uu haysto gali lahaa weli dad badan way raaci lahaayeen awood badan oo ku lahaa ma ahayn nin isqariyo intuu hargeysa hudeel dhex yimaad sidaas horta nimankaasi waa rafadkii rafenaysay intaasan kale yahay ha iska qayliyaan Ilaahay uu naxariistay maanta uu inaga hooseeyay dawladdiisa iyo dadkiisa baaritaanka gacanta ku haya qodobka kale waxa weeye arrintan soo baxaysa ee la leeyahay miyuu istilay iyo xogaha la helaya ilaa imka si ay dhida xogaha la helaya horta guud ahaan waa xogo aad u kooban oo la ilaalinayo 23 qof meelaha dad aba loo xirxiray booliisku ay xirxireen waa dadkii u dadwaa hotelka dad baa la deganaa qolka horta isagu dabaqa labaad buu ka deganaa qolkuna daaqad buu lahaa dhinac taasi waxa jirta in ay adag tahay yacni qof intuu daaqada soo istaago maadaama dabaqa koobaad ahayn inuu joogto balkoon loo soo kori karaana kuma jiro arrinta labaad ee soo baxaysa in uu hoosta uga xidhnaa qolku taasina muran badan bay dhalin kartaa oo albaabka inta la soo qaado la dilo miyaa furo kale lagu qufulay dadka qaarna waxay leeyihiin maye furuhu isma furi karo haddii uu furo kale hoosta kaga jiro laakiin maaha wax lagu wada kalsoonaan karo oo waxay leeyihiin uu u xidhnaa dadka qaar markaasi qaabka booliisku markasta waxay ka qaadanayaan baarayaashu
xabaddu halkay kaga taal masaafadii u jirto qofka imika halkan xabadda kaga dhufto sida ay u gelaysiyo qofka ka fog marka uu ku dhufanayo waa kala laba qaabka qofku uu dhacay iyo siduu u raftay intuna iyadna waa hawl kale booliis bay u taala arrintaasi waxa weeyaan dad baa leh xabadda waanu maqlanay laakiin nan ay ka dhacday maanaan garanay waxa kale oo soo baxaysaa inay hoteelka qayb ka mid ay ku xidhnayd CC camera waxyaabaha meelo kale oo meherada ay ku xidhnayd dadkii galay dadkii ka adeegtay telefoonadii wixii oo dhan baaritaan xoog xogta qaybna waa xasaasiyo waan hayaa laakiin hadda ma raba inaan soo daayo oo waxa laga yaabaa inay baaritaanka nagu dheerayso oo qaybo dambiga ku lugli ay baxsan karaan ama fakan karaan dadka qaar markaa waxay leeyihiin markaa adrooskii la eego booliisku waxay soo saari doonaan xog isagaa isdilay si aanay fidmo kale iyo hawl kale iyo wax kale u dhicin haddii ay taasi dhacdo laakiin la dilay iyadna waa khatarteeda arrinta qofku inuu isdilo waxa laga eegaa xaaladaha ku meersan ma maskax ahaan baa jirtaa ma waxa jira ma aragtay dhibaato kale oo caafimaad ma waxa jirta xaalado dhaqaalo ku meersan ma xaalado qof dhowr iyo 60 jiri inuu maanta xabad madaxa iskaga dhufto oo muslina oo waliba Soomaaliya waa wax aad bulshadeenna ugu yar ama aan dhicinba waa laga yaabaa nin dhalinyaro ah oo maskax ahaan xanuunsaday baa istilay inaad maqasho ama badan arrinta istilka waliba dadka waaweyn ee da'daasa ee 60 iyo wixii ka sareeya ma aragno waxay noqonaysaa xaalad nagu cusub anigana taas igu yara adagtahay kana hor dhici mayno arrinta booliska arrinta kale waxay noqonaysaa dad baa la qabanayo hugunka iyo qaylada iyo waxa sadarka seen la qabanayo dadkaasi ma aha wali baaritaanku baa ku socday kolba qof baa la soo qabanay shacabkuna maadaama qiireysay inay hoteelka garab joogaan kolba qof baa laga shakiyo la soo qabanay ilaa dhowr iyo 20 kaasina laga dhamaysto kulleeyta baaritaanka laga dhamaysan markaas xaqiiqda la ogaan doono dhanka kale hadaba waxa jira sirdoona halisa hawlaha noocan oo kala fulin kara sirdoonka Djibouti sirdoonka Ethiopia sirdoonka Soomaaliya nisa shiinaha caawimo ku bixinaya Turkiga caawimo ku bixinaya waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo khalkhalka Soomaaliland lagu khatar gelinay taasina hadii la waayo ninkaas Ilaahay naxariistay wax dilay labadii inaanay hore la garan waayo wax dilay madaxweynaha adarkasta inay yaray intay orosiisidiisa laabta ka galayso amnigii wadanku sidaa noqdo sirdoonkii qaranka dhan la baabi'iyo horta waxa la yaab leh khatarta ugu weyn madaxweynaha meel yimid taliyihii madaxtooyada ciidankii madaxtooyada taliyihii sirdoonka ku xigeenkiisii hay'adii sirdoonka shaqaalihii ka shaqeynayay wasiirkii arrimaha gudaha ku xigeenkii agaasimayaal wixii amniga taliyihii booliiska taliyihii ciidanka qaranka taliyihii ku xigeenadii wax alle iyo wixii amniga oo dhan hal mar intuu qaado bedelay cid kala keena okay waxa fiican hadaa taliyaha bedesho inaad muddo horta intuu taliyahan la qabsanayo taliye ku xigeenkiisa iyo dadka la shaqeynaya iyo waxaas aad u diiso markuu shaqadii la qabsado aad taliyaha laftiisa la tashato kadib ku xigeenkii aad bedesho shaqaalaha kalena inta badan agaasimay wixii ka hooseeyo laguma degdego waayo files fara badan bay gacanta ku hayaan 350 qof oo sirdoonka qarankii intee oo file bay gacanta ku hayeen imisa file baa laga yaabaa dambiilayaal bay daba socdeen waxaasoo dhan markaad wada bedesho wadankii waad qaawis khatar baad gelisay iminka markaasi khatartan amni iyo waxyaabaha waxa keeni kara khatartan aynu dul hoganana waxa weeyaan wixii amniga gacanta ku hayay oo dhan ba hal mar la wada bedelay arrintaas waxay arrin aad u seexaad melihi ha bedelin oo taliyahan iyo wasiirka iyo wuxuu dhan bedelkeeda adaale laakiin wasiirka arrimaha guduhu inta uu la qabsanay inaad wasaaradii laba u kala goyso tiraada taasina waa amniga taasina waa tii arrimaha gudaha hadhowna dastuurkii yaab la beek te waxaan filayaa halkaasi in ay fiicnaan lahayd wasiirka arrimaha gudaha bedesho ku xigeenka iyo intana waqti kale aad bedesho taliyaha sirdoonka markaad bedesho ku xigeenkiisii iyo shaqaale hoosaadkii kale aad u deyso taliyaha madaxtooyada hadii aad bedesho taliye kala keenso intuu ciidan ku filan oo tababaran helayo
دي سوق اللي تريها محيطة عسكرت مدحتوية هذه كدين ميسي لكن خضر بقى هذا يوحك استقري والدولة المدحوين خضر كقبا إلهي كيابا وطن كي بربرية برنامج كان شير قرأ ميلفو قارسي إلهي دنبيلها أنا كشفو مرحوم كان إلهي ونحرستو أديات بكو سلامية